wixii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka ay deganaayeen madaxweynayaashii hore iyo gudoomiyihii baarlamaanka hore Soomaaliya waa wixii aan ka digaynay bilihii la soo dhaafay waa wixii aan ka digaynay oo aan lahayn haddii la isku dayo in xukunka la isku dhajiyo haddii aan la aqbalin in dalka doorasho loo sameeyahay ka dhacdo inay tagayso meelaan wanaagsanayn caawa waxaa muuqata in intii amniga la sugi lahaa doorashadii laga shaqayn lahaa la weeraray mas'uuliyiin ka shaqaynayay in shacab Soomaaliyeed ay dibadda u soo baxaan si u gutaan waajibkooda dastuuriga waxaan marka hore u taxsiyeynaynaa dadkii ku geeriyooday halkaas waxaan leenahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo eheladii ay ka geeriyoodeen ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo inta dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay ha caafiyo weerarkii caawa ka dhacay hotelkaas waxa uu ahaa weerar qaawan oo lagu gardaraystay laguna rabay in lagu dhibaateeyo naftoodana dhibaato loogu geysto madaxda halkaas ku sugnay wax kale oo lagu macnayn karo ma jiraan waana taariikh madow oo aan caawa dhex taaganahay iyadoo muddo xileedkii hay-adaha dastuuriga dalka uu dhamaaday madaxweynaha xilkiisu dhamaadana shaqadiisu kaliya ay ahayd dalkan inuu doorasho galo ayaa caawa ummadda Soomaaliyeed waxay aragtaa meesha aan taaganahay ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada Soomaaliyeed shaqada idin bannaan kaliya waxa ay tahay inaad amniga sugtaan qof Soomaali ah weerar kuma qaadi kartaan ogaada hadda waxa tihiin ciidan Soomaaliyeed oo iyagu dalka mas'uul ka ah maadaama hay-adihii dastuuriga ahaa oo ugu horeyso madaxtooyadu xilkeedii uu dhamaa sababta kaliftay caawa waxa dhacay waxay tahay in lagu baaqay in shacabka Soomaaliyeed inay isugu soo baxaan banaanbax nabadeed si ay ilaashadaan horumarka iyo dimuqraadiyadda dalkan uu gaaray loogana ilaaliyo in dib loogu celiyo wixii nabaday 30 sano aan soo dhaafnay iyo 20 sano oo ka horeysay si marka aan taas uga jawaabno si khaladkii caawa ahaa in dhiig lagu daadiyo aan ugu jawaabno ilbaxnimo horumar dimuqraadiyad iyo hiigsiga ay dadka Soomaaliyeed rabaan waxaan shacabka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho ugu baaqaynaa inay kulligood isu soo baxaan si aanay mar dambe u dhicin dhibaatadii caawa dhacday si aan u muujino dareenkeena una xaqiijino dalkan inaanu dib u noqon waxaa kaloo rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego isgoyska maanta dalku uu taagan yahay qof walba mas'uuliyad ayaa ka saaran in laga samata bixiyo ma aqbalayno in dadka la caburiyo ma aqbalayno in dalka la afduub lagu haysto dalkan waa la wada leeyahay waxaana nala ka rabaa kulligan inaan difaacno difaacaasi si uu u dhaco qof walba oo Muqdisho jooga yaani bari gurigeeda ku harin waa waajib ku saaran oo dastuuri ah